wax aanan filayn baan halkan ku arkay wax kastana waxay yihiin baa lagu qiimeeyaa marka hore waxaan rabaa inaan salaanta runtii gudoomiyaha xusbiga tiir iyo dhammaan xubnaha xusbiga ku-xigeenka saaxiibkay oo meelo badan aanu laftigiisa hawl cabdullaahi aanu ku wada jirno oo aan ku farxay markaan hadda maanta halkan ku arkayno xusbiga tiir uu ku-xigeen ka yahay waxaan kaloo salaamayaa xusbiyaday aniga laftigaygu aan mar ka tirsanaa oo asxaabtaydu maanta halkan ay hor fadhiyaan iyo madaxda dowladda oo senatarka iyo xildhibaanada cabdikaafi iyo ra-iisul wasaare hore foosiisu xaaja aadan dhammaan bahda saxaafadda marti sharafta kale waxaan ku salaamaya salaamta muslimka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxa ay ila tahay maanta injineer saalax wasiir gudoomiye runtii dadku waa wada dadaalaan waxbay sameeyaan laakiin wax la taaban karo qofkii keena waa ka duwan tahay ummadda kaleeto saalaxaan u aqaanay muddo dheer baan isnaqaanay runtii markuu wasiirka ahaana wasaaraddiisu wasaarada kale waa ka cadcadday taas waxay maanta markhaati ka tahay xusbigan uu samaystay uu madaxda ka yahay in muxuu ahaa xusbi runtii muuqda inuu yahay oo weliba ay ku dhan yihiin soomaali oo dhan waxaa iiga soo baxday halkaas in ay yihiin meel kastoo soomaali ay joogto xusbigiisu matalaad buu ku leeyahay waana waxaa la yska wada faray oo la yska rabaa tan kaleeto xusbigu marka hadda laygu yidhi afar sano saalax way ag fadhiyo haddana waxaan yidhi saalax ma sax baa mise waa 4 sano intii kasoo wareegtay 4 sano kasoo wareegtay buu yidhi runtii 4 sano wax markhaati ay ka tahay xusbigu maanta meeshuu gaarsiisan yahay ku dayasho inuu mudan yahay xusbiyada kalena u qirayaan inuu yahay xusbi kaalintiisii ka soo baxay anugu runtii aad baan u jeclaa dhextaalkii markii lagu soo daray oo dhallinyaradii fanaaniinta ahayd oo weliba sida geesinimada lahayd xusbigu u taabtay in cusbitaal iyo wixii la mid ah waqtigii hore laga soo tegay oo waa cusub furmay oo Soomaaliya ay rabto inay tashato dhextaalkaas wayna ka mahadinayaa kooxdii fanaaniinta sida fiican aad u soo bandhigteen tan kaleeto saalax inuu waddanka hoggaankiisa qaban karaan intan aynagu markhaati kacaysa dadku kelmadaha qaarkood waxaa laga yaabaa dad kale inay ka xanaaqaan anugus waa layga bartay in wixii niyaddeeda ku jira inaan sheego saalax marka waad muujisay inaad maanta matalaadeeda aad leedahay Soomaaliya hoggaankeeda inaad qaban kartid waan kugu soo dhaweynaa waan kugu garab taagannahay xusbiyada Soomaaliyeed waxaan leeyahay waxaan maqlayay in hadda ay la bahoobay oo la samaystay maxay ahayd coalition waxaan filayaa sida qura wax lagu noqon karaa waa xusbiyada oo isu taga saalax xusbigiisa dadka codeen muxuu amaanaya saalax isku xaafad kamaano imaan isku tuulo kamaano imaan lahjadaha lagu hadla xataa waa lahjad kalan ku hadlaya oo wada aragtaan laakiin waxaa ka markhaati kacaya saalax naftiisa ayuu soo dhisay intaa ku keenay dadka kale macaariday wuxuuna ka sheegi maayo laakiin saalax ma ahayn nin madaxweynaho wasiiradiisii iyo xildhibaanadiisii iyo xusbi ka dhigtay oo wata ma ahayn waa nin naftiisa wada weeye oo maxay ahayd guul ku gaaray marka kuwa xusbiyada oo isu tago xoogga waaweyn oo raggii waddanka usoo tilinaya ay xukumaan waa mahadsan yihiin iyaga waqtiga waxba ka sheegi mayno laakiin saalax oo caata ah baa ka xoog badan aad aragtaan maanta sida waxa uu soo bandhigay ay tahay marka waxaan ugu mahadnaqayaa xusbiyada hal la xoojiyo wax yar baa dhiman inta dhimanna runtii waa tii la yidhi sanadkan waxbaa lagu qaybsanayaa ra-iisul wasaarehena hore foosiisu xaajadan way taabatay ilaa tiri petition baa la rabaa in la qoro oo ku jira maxay ahay hiiraan online dhinaca kaleetana magaaladana waa la maraya marka
dadku waxaa loo baxay loo dhaqaaqay in nin walba xisbigu uu rabo galo xisbigiisana uu ku sharaf tago uu berri wax ku noqdo marka waxa weeyaan hadal ku raagin waxaa qiiro iga keenay saaxiibkay saalax oon ogaa weliba dadku nin walba intan wax waa soo arkeen saal haddigiisu xataa waxaan filaya haddaana khaldanayno xataa dil la isku dayay in la dilo baa jirtay yaa la dilaa qof waxaa baa la dilaa qof aan waxba ahayn lama soo hadal qaado la isku manadeeyo marka ilaahay kaa badbaadaan ugu mahadnaqayna waana xoog iyo orod baad ka sii qaaday guulaysaan ku leeyahay waxaana leeyahay baxda saxaafadda miidiyaha oo aan marna ilaawi karin waayo waxa la hayo haddaan miidiyuhu aanay tabin inay keligaa dhexdeena sheekaysanay noqonaysaa marka baxda saxaafadda iyo xusbiyada iyo fanka intiina waxaan leeyahay waa mahadsantihiin